gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Maxamuud Cilmi Raage oo maanta shir jiraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda amni ee magaalada iyo diyaar garowga doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. maanta halkan waxaan ku qabanay barnaamij looga hadlayo amniga degmada Jowhar. magaaladan Jowhar amnigeedu boqolkiiba boqol aad buu u wanaagsan yahay sida laga warqabo doorashadii aqalka sare ee maalmo dhow dhamaatay si nabadgelyo ayay ku dhamaatay iyo si wanaagsan oo loo hambaliyay maamulada dalka ka jira oo dhan looga hambaliyay dawladda dhexe qaabka wax u dhaceen iyo nidaamkii aan u habay loo sameeyay si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyay arintaas. haddana waxaan rajaynaynaa mar dhow inay bilaabato doorashadii aqalka hoose oo lagu qaban doono halkan ergooyinka iyo musharaxiinta lagu dooran doono halkan. aad baan ugu diyaar garownay, aad baan u soo dhaweynaynaa. nabadgelyada degmadan Jowhar waa mid la isku halayn karo, waa mid boqolkiiba boqol ah, wax dhibaato ah kama jiraan. waxaan diyaar u nahay inaan soo dhaweyno ergooyinka wax dooranaya iyo madaxda la dooranayaba. sidaas awgeed waxaan aad iyo aad ugu celinayaa mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad inaan u diyaar garownay in doorashadii aqalka hoose lagu qabto degmada Jowhar qaybtii ay ku lahaayeen. dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa uu bulshada ku nool magaalada Jowhar ugu baaqay inay ka qayb qaataan sugidda amniga magaalada. dhammaan bulshada ku nool degmadan Jowhar iyo agagaarkeeda waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan sugidda amniga degmadan Jowhar oo lagu qaban doono mar dhow doorashadii aqalka hoose. aad iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaad uga codsanaynaa inay u soo baxaan, u diyaar garoobaan, waxna weyn ay ka bedelaan amniga iyo nadaafadda iyo dhinac kastaba halkan degmadan Jowhar.